firi weligaa ma isku dayday naftaada horumar inaad gaarsiiso markaa ku guda jirtay broseeskaas aad naftaada horumarka ku gaarsiinayso ma aragtay dadka kale kaaga dhawaa oo horumarkaaga ka xun dadkaas waxaa laga yaabaa saaxiibaha inay yihiin dadkaas waxaa laga yaabaa familkaaga inay ka mid yihiin haddaba su-aasha isweydiiska mudan waxay tahay soomaalida xaasidiin miyaa ama soomaalida dadka xun miyaa walaalkood horumar inuu gaaro 100% waxaan hubaa adiga fiidiga fiirsanayo inaad aragtay ama maqashay dad badan oo dhahayo soomaalida xaasidiin waay waxaan hubaa dadkaas saas dhahayo inay isku dayeen wax naftooda horumar gaarsiinayo markaasna ay arkeen dadka kale uga sokeeyay oo horumarkooda ka xun marka hadda su-aasha mar kale soo laabanayso waxay tahay qofka Soomaaliga ah ma dhibaysaa qof kale oo walaalkiis ah horumar inuu gaaro sababta dad badan oo Soomaali ah ay u dhahaan Soomaalida xaasidiin waay waxay tahay dadkaas dhahayo Soomaalida xaasidiin waay waxay isku dayeen naftooda inay horumar gaarsiiyaan intay ku guda jireen broseeskaas ay naftooda horumarka ku gaarsiinayeen waxay arkeen dadka uga dhawaa oo horumarkooda ka xun firi marka hore waa inaan wax ka fahanaa bini'aadanka siduu u fikiro ama siduu wax u arko bini'aadanka wuxuu leeyahay qaab nololeed uu asiga u arko istiraah waa waxa ay dhahaan comfort zone-ka marka adiga rabo horumarka inuu gaaro waxa isku dayaysaa comfort zone-kaas inaad ka baxdo waxa suubinaysaa waxaadan hore u suubin jirin sababtoo waxaa rabtaa horumar inaad gaartid marka horumar markaa gaaraysid waa inaad suubisaa waxaadan hore u suubin jirin saa u gaarto meesha hadda joogtid meel ka fiican xaqiiqada waxay tahay adiga waxaa tahay qof hami leh waxay saaxiibaha suubiyaan wax ka duwan ayaa suubisay riskiga qaadatay waana sababta keentay hamigaaga inaad gaartid marka sababta saaxiibaha ay ku dhibsanayaan wax kale ma ahan waad ka fiican tahay waxay dhibsanayaan adiga ma ahan waxay dhibsanayaan waa natiijadaada waa horumarka aad gaartay shalay saaxiibaha markaa la mid ahayd mayse ku dhibsan jirin way ku jeclaayeen saaxiibkooda ahayd walaalkooda ahayd laakiin maanta iyaga waa ka fiican tahay taas maxay keenaysaa iyaga kalsooni darro inay dareemaan ay ku dhibsadaan waxay dhibsanayaanna adiga ma ahan waa horumarkaaga marka arrintan ma ahan wax gooni u ah dadka Soomaalida ama ma ahan wax gooni u ah dhaqanka Soomaaliga bini'aadanka dhan ayaa ka siman firi bini'aadanka markuu arko shalay saaxiibkiis oo isku mid ahaayeen dhanka nolosha oo maanta horumar gaaray way dhibaysaa sababtoo asiga waxay dareensiinaysaa inuu guul daraystay marka waxaan dhihi karnaa arrintan waa arrin dabiici ah oo bini'aadanka dhan uu ka siman yahay annaga Soomaaliyaan ahnay annaga isku dhex jirno waxaan aragnaa bes Soomaalida laakiin dhaqanada kale xataa arrintan way leeyihiin dadka qaar markay arkaan horumarkaaga maseerkaas ama dhibsigaas way qarin karaan calooshii ku haysanayaan adigana waxay ku leeyihiin maasha Allah dadna ma qarin karaan oo xamaasadda ayaa ka tambadinayso isla markii waa ka dareemaysaa horumarkaaga inay ka xun yihiin waa wax la dareemi karo waa wax dabiici ah bini'aadanka markuu arko qofay shalay isku mid ahaayeen oo maanta horumar gaaray xoogaa wuu ka maseyraa sidaas darteed mar walba waxaa fiican qorshahaaga qof walba inaadan u sheegin qof kastoo saaxiibka ah qof kastoo dadka kale kaaga sokeeyo horumarkaaga ma rabo khalad ay arkin ani ma ku dhahayo qof walba wuu xun yahay dadka dad fiican ku jiro laakiin badanaa waxaa fiican hadda dad aaminaysid tiradooda inay yar tahay yeysan ka badan hal qof ama laba qof marka hadda su-aasha muhiimka ah isla markaasna isweydiiska mudan waxay tahay sidee ku ogaan kartaa saaxiibka dhabta ah ama sidee ku ogaan kartaa dadka rabo adiga horumar inaad gaartid waxaa soo boosti garaysaa horumar aad gaartay meel ka mid ah social media waxaa soo dhigtaa horumar aad gaartay wuxuu rabo ha ahaado horumarkaas wuxuu ahaan karaa ganacsi inaad furatay horumarkaas wuxuu ahaan karaa inaad wax baratay oo shahaado muhiim ah aad qaadatay tusaale ahaan dhakhtar oo kale inaad noqotay 100% waxaan hubaa
dad badan aad u malaynaysid saaxiibaha inay yihiin ama dadka kale inay kaaga sokeeyaan, horumarkaas wuu dhibaa. Warkooda ma maqlaysid. Laakiin dad badan oo saaxiibaha ahayn xataa aan ku aqoonin ayaa kuu soo hambalyeyn doona. Sababta saaxiibaha horumarkaaga uu dhibaayo wax kale ma ahan. Horumarkaaga iyaga wuxuu ka dhigaa dad guul daraystay. Ayaga xataa way rabaan horumarkaas aad gaartay oo kale inay gaaraan. Laakiin iyaga nasiib darro weli waxay ku jiraan comfort zone-kii adiga aad ka baxday. Inay comfort zone-kaas ka baxaan ma rabaan. Inay wax isku dayaan ma rabaan. Inay riski qaataan ma rabaan. Laakiin hadday arkaan qof hami leh, rabo comfort zone-kaas inuu ka baxo, riski qaato, wax cusub isku dayo, arrintaasna way dhibaysaa. Waa wax dabiici ah oo bini'aadamka dhanna uu ka siman yahay. Laakiin marka social media-da kusoo bandhigtid ama u sheegtid saaxiibaha khasaaro kusoo gaaray, dhammaantood waxay kuu soo qorayaan ama waxay ku leeyihiin khasaarihii kugu dhacay waa ka xunnahay. Markay ku leeyihiin khasaarihii kugu dhacay waa ka xunnahay, daacad kama ahan, way ku faraxsan yihiin. Maxaa saas u leeyahay dadka saaxiibaha waay? Maxay ugu farxayaan adiga dhibaatada kusoo gaartay? Dhibaatada kusoo gaartay waxay ugu farxayaan xaasidnimo ma ahan. Waxay ugu farxayaan waxay tahay iyaga waxay ku suubinaysaa ama iyaga waxay dareensiinaysaa comfort zone-kaas ay ku jiraan inuu yahay mid saxan. Marka saas darteed dhibaatadaas adiga kusoo gaartay iyaga safe ay dareemayaan. Meeshaas ay ku jiraanna waxay dareemayaan meesha saxda ah, ama noloshaas ay ku jiraan waxay dareemayaan nolosha saxda ah inay tahay. Saas darteed ay ugu farxayaan dhibka kusoo gaaray. Marar badan waxaa arkaysaa waxaa ku mashquulsan tahay naftaada sida horumar u gaarsiin lahayd. Waxaa arkaysaa qof aadan is aqoon, qofkaan weligaa waxba kama halaynin, wax idin dhex maray ma jiro. Haddana qofkaas waa iska kaa neceb yahay, adiga dhan aad dhibaayo. Sababta wax kale ma ahan. Qofkaas waxaa dhibaayo horumarkaaga. Adiga horumarkaaga qofkaas wuxuu dareensiinaa asiga inuu guul daraystay. Waana sababta qofkaas uu ku nacayo. Haddaa aragtid qof iska kaa neceb, macnaheedu waxay tahay qofkaas wuu kaa hooseeyaa. Horumarkaaga ayaa dhibaayo. Qof adiga kaa fiican ma kugu mashquulayo. Marka haddii aad aragto saaxiibaha ama dadka kale kaaga sokeeyay uu horumarkaaga dhibaayo, waxay tahay adiga horumarkaaga iyaga wuxuu dareensiinaa inay guul daraysteen. Khalad ay arkin. Haddii saaxiibkaa horumar gaaray, horumarkiisa si positive ah aad uga maseertay, isla markaasna aad rabtid horumarkaasoo kale inaad gaartid, taasoo kale way fiican tahay. Isku day, dadaal, waad gaaraysaa. Laakiin maseerka markuu isku bedelo xaasidnimo ma fiicna. Midaada kale qofaca ah inaad ku mashquushid maba fiicna. Horumarkuu gaaray oo kale waad gaari kartaa. Shalay qofkaan wuu kula mid ahaa, wuu dadaalay, wuu gaaray. Adigana waad gaari kartaa. Oo haddaad dadaashid waxaa laga yaabaa inaad ka fiicnaato. Asxaabta, fiidiyowga intaa ka bixin, bal haddaa iga fikir duwan tihiin, commentiga igu soo qora. Bal fiidiyowgaana saa u aragtaan, commentiga igu soo qora. Aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada fiidiyowgaana daawateen. Ha iloobina fiidiyowgaan like ina saartaan, comment ka soo bixisiin, asxaabtiina u share gareysaan. Haddaa weli subscribe dhihina, subscribe dheh. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Mar koobaad, mar labaad, mar saddexaad waxaa noo balane fiidiyowga ku xigo. Ballanteenu waa caafimaad iyo muruq.